السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا وما تنتهين ما أنت وأربعة وأنا صدح يلا باتنك بشا تضباط جولاي سنة كلا بدو كن يشان يلا باتنك موقال كان وحن ربائنا ندي كل وداقو شاكذا تاجرياش مدحوين ترام مالمهم بكعريسيني سي oo ah soo bandhigista fileska la yiraahdo Epstein files oo maamulka Trump uu diiday yahay inuu soo bandhigo amarkii uu wasaaradda cadaaladda siiyay Trump oo ahayd in grand jury testimony shaaca laga qaado oo garsoore Obama uu magacaabay ay maanta ka diiday in la soo bandhigo arrintaasi maxay tahay sababta afayeenka aqalka wakiilada oo baarlamaankii shalay fasax u siiyay iyadoo toddobaad ay ka harsan tahay waqtigii ay fasaxooda aadi lahaayeen maxay tahay waxyaabaha uu qarinayo oo FBI-da la leeyahay waxaa lagu amray Epstein files meel kasta oo magaca Trump uu uga jiro in ay ka saaraan Trump shalay muxuu ku eedeeyay Obama oo ka jawaabay isla maantana taliyaha sirdoonka qaranka oo sheegtay in kiiska Obama wasaaradda cadaaladda loo wareejiyay si baaritaan loogu sameeyo doorashooyinkii 2016 Hillary Clinton maxay tahay sidoo kalena waxyaabaha laga baarayo oo wasaaradda cadaaladda ay baarayso arrimahaasi oo idil ayaan rabaa inaan idila socodsiiyo iyo xaaladaha weyne Trump ayaa ku kala qaybsamay soo bandhigista kiisaskan ama fileska la yiraahdo Epstein files Trump waxaan ognahay xilligii ololaha doorashada uu ku jiray isaga iyo qaar ka mid ah hadda xubnihiisa golaha wasiirada ama xilalka haya dowladda uu u magacaabay waxa ay doonayeen in Epstein files la soo bandhigo laakiin markii Trump xilka uu la wareegay oo qaar ka mid ah xubnihii ugu cadcadaana sidoo kale xilal uu u magacaabay waxaa hadda soo baxday in aysan muuqan in Epstein files la soo bandhigayo wasiirka cadaaladda Pam Bondi iyo taliyaha FBI-da Kash Patel ayaa toddobaadkii hore waxa ay soo saareen waraaq ay leeyihiin wax cadeymo ah oo dheeraad ah oo Epstein files la xiriira sooma bandhigayno mana jiraan wax cadeynaya in dadka qaar blackmail uu ku haystay oo rakaato uu ku haystay iyo sidoo kalena in aysan jirin waxyaabo kale oo cadeymo ah oo dheeraad ah oo la soo bandhigayo ama wax la yiraahdo client list dadkii macaamilka u ahaa wax la soo bandhigaya ma jiraan arrintaasi waxay carab weyn ka dhex abuurtay taageerayaasha MAGA oo xisbiga Republicaanka oo dhahaya maxay yihiin waxyaabaha la qarinayo ma la soo bandhigo ninkan hadda taliyaha FBI-da Kash Patel waxa uu kamid ahaa xubnihii ugu cadcadaa ee Trump xilligii ololaha uu ku jiray dhahayay waa in shaaca laga qaadaa Epstein files ku-xigeenkiisa oo la yiraahdo Dan Bongino isaguna podcast ayuu balahaaba wuxuu dadka u ololeynaya ayuu ku jiray toddobaadkii hore waa tii soo baxday Dan Bongino inuu yiri waan ka tagayaa ku-xigeenka FBI-da oo iscasilaya inkastoo weli uusan iscasilin arrintaas marka Trump iyo wasiirkiisa cadaaladda Pam Bondi ayaa cadaadis xoogan u soo fuulay Trump waxa uu amar ku siiyay wasiirka cadaaladda Pam Bondi grand jury testimony wax la yiraahdo in la soo bandhigo markii Epstein intii uu noolaa oo aan la dilin 2019 xabsigu ku geeriyooday laakiin waa la dilay ayaa soo baxaya in Epstein kaasi iyo Jeffrey Epstein iyo waliba naagti isaga la shaqeynaysay la yiraahdo Ghislaine Maxwell oo iyaduna hadda xabsi 20 sano ah lagu xukumay sanadkii 2022 in wareysiyadii laga qaaday oo grand juryga federaalka ah markii la wareysanayay in la soo bandhiga ayuu ku amray in Trump wasiirkiisa cadaaladda laakiin garsoore uu Obama hore u magacaabay oo la yiraahdo Robin Rosenberg ayaa maanta diido waxay tiri lama soo bandhigayo marka garsoore federaal amarkiisa ayaa lagu soo bandhigi karaa grand jury testimony-gaasi marka waa ay diiday maanta waxay tiri ma la soo bandhigayo marka cadaadiskii Trump iyo wasiirkiisa cadaaladda haddana waa uu ku sii kordhaya maadaama ay leeyihiin wax la soo bandhigayo ma jiraan laakiin arrintan la yaab kale ayaa sidoo kale shalay soo baxday oo la leeyahay kun ka tirsan ciidamada FBI-da ayaa waxa la geliyay 24 saac oo shifti ah oo aysan dhaqaaqaynin waxaana la yiri waa inaad dib u eegtaan ilaa iyo 100,000 oo Epstein fileska dib u eega waxa aadna ka saartaan meel kasta oo magaca Trump uu uga jiro marka Trump ninkan saaxiib ayuu la ahaa xitaa waxa cadaatay diyaaradda ninkaasi oo ahayd Boeing 727 in 7 jeer oo la raacay ayaa cadeyn loo hayaa oo saaxiibay ahaayeen xitaa hadda waxa la soo bandhigay sawirro xilligii Trump arooskiisii 90yadii inuu ka qayb galay ninkan Trump hore uu sheegay saaxiib ayaan la ahaa yuri laakiin 15 sano u dambeysay wax saaxiiba ma aanan la ahayn marka
ninkan waxaan ognahay Jeffrey Epstein gabdhaha da'da yar oo aan qaan gaarin ayaa dadka madaxda ama kuwa lacagta leh uu ka iibin jiray oo jasiirad uu leeyahay ugu geyn jiray si ay ula seexdaan marka muuqaalo ayaa jira oo la hayo laakiin wasaaradda cadaaladdu waxay tiri sooma bandhigayno arrintan marka xubnaha xitaa Congress-ka Republican-ka ilaa iyo 11 xubnood ayaa waxay yiraahdeen cod ha loo galiyo aqalka wakiilada dimuqraadiyiintana diyaar ayay ahayd marka afayeenka aqalka wakiilada markii uu arkay inay jiraan xubno Republican oo doonaya in codkaasi la horkeeno aqalka wakiilada shalay ayuu wuxuu yiriba aqalka wakiilada fasax ay yihiin toddobaad ayaa ka harsanaa fasaxooda bisha Agosto dhan fasax ay ahaan lahayn September ay soo laaban lahayd marka toddobaad ka hor asagoo waqtigii fasaxa la gaarin ayuuba kala dirayba baarlamaankii sababtu maxay tahay haddii cod la geliyo waxa uu yahay xubnaha Republican-ka gaar ahaan kuwa muxaafadka ah inay doonayaan in la soo bandhigo marka sidaas darteed sida aragtaan xubnahan 11 ah waxay yihiin xubnaha dimuqraadiyiinta ku raacsan Epstein Files in la soo bandhigo ninkii Trump waxa uu leeyahay dimuqraadiyiintu 4 sano ayaa Biden oo madaxweynaha maxay u soo bandhigi waayeen hadda xitaa maxay u qaylinayaan xitaa taageerayaashiisa waa uu caayo wuxuu yiri in ma doonaya taageeradooda aad stupid waaye magaciisaas uu ku tilmaamay true socialkiisa maruu ku soo qoray Trump taageerayaasha doonaya in Epstein Files la soo bandhigo marka hadda ku xigeenka aynu wasiirka cadaaladda ninka la yiraahdo Todd Blanche oo qareenka qaaska ee Trump ahaa xilligii dacwadaha ay ku socdeen oo laha doorashada uu ku jiray ayaa shalay waxa uu yiri waxaan doonaynaa inaan xabsiga Florida ay ku jirto aan ugu tagno Ghislaine Maxwell oo saaxiib la ahayd ninkan Jeffrey Epstein isla markaana gabdhaha u geyn jirtay waxaan doonaynaa ayuu yiri si xarunta loo ogaado in wixii cadeymo ah oo jirana loo soo bandhigo bal in FBI-da iyo wasaaradda cadaaladdu ay la hadlaan isla markaana ay dhageystaan waxyaabaha ay doonayso xitaa waxa la soo jeediyay haweeneydaas in Congress-ka looga yeero isla markaana halkaasi su'aalo lagu weydiiyo laakiin Trump waxa uu doonayaa in uu ka sii jeediyo dadka arrintan isaga ku foorarto oo Epstein Files la soo bandhigo shalay isagoo Oval Office-ka kula kulmayay madaxweynaha waddanka Indonesia ayaa eedeyn dusha uu kaga tuuray madaxweynihii hore Obama waxa uu yiri fidna kiciye ayuu ahaa gangis ayuuna hogaaminayay sidaas darteed waxa uu yiri dadkii aniga dambiyada igu soo oogayay hadda argoosi waa inaan sameeyo iyagana waan dabagelaya markii hore aniga ayaa la ugaarsanayay hadda aniga ayaa wax ugaarsanaya ayuu yiri shalay markii hadalkaasi uu ka dhawaajiyay oo Obama eedeyntaasi uu dusha uga tuuray Obama afayeen u hadlay ayaa arrintaasi ka soo jawaabay waxana uu ku tilmaamay arrintaas inay tahay mid sal iyo raad aan midnaba lahayn xafiiska madaxweynaha waxay yiraahdeen sharaf ayaan u haynaa laakiin sida muuqata arrintan waa mid sal iyo raad aan lahayn isla markaana aad u tabar daran waxana la doonayaa dadka in looga sii jeediyo arrintan Epstein Files-ka ee hadda socoto waxaan ognahay xitaa Elon Musk iyo Trump markii ay isku dhaceen ninkii Elon Musk waa kii soo qoro yiri sababta loo qarinayo Epstein Files waxay tahay Trump ayaa ku jira marka waa maxaa loo qarinaya waa kii yiri arrintaas marka waxay sababtay Trump eedeyntii shalay markii uu soo jeediyay in maanta ay taliyaha sirdoonka qaranka Tulsi Gabbard aqalka cad ay ka sheegto in kiiska baaritaanka ee dambiyada madaxweynihii hore Obama loo wareejiyay wasaaradda cadaaladda isla markaana baaritaan ay ku sameynayso sidoo kale Tulsi Gabbard waxa ay sheegtay sidoo kalena in ay jirtay xilligii 2016 Hillary Clinton markii la tartamaysay madaxweynaha hadda xilka haya ee Trump sanadkii 2016 in cirbada la siinayay isla markaana sidoo kale ay qabtay cudurka macaanka type 2 ama nooca labaad wadna xanuun ay qabtay arrintaasi oo idinla la qarinayay isla markaana Ruushka doorashooyinka ay faragelin ku lahaayeen oo ay jirtay cadeymo u hayay Putin isla markaana uu diiday inuu soo bandhigo isagoo doonaya Hillary Clinton in ay soo baxdo marka Hillary Clinton sidoo kale baaritaan ayaa lagu sameynaya ayaa taliyaha sirdoonka qaranka Tulsi Gabbard ay sidoo kale ay maanta sheegtay marka Trump shalay isla markii Obama eedeeyaba isla maantaba waa tan taliyaha sirdoonka qaranka dhahaysa arrintaasi baaritaan ayaa lagu sameynayaa Obama oo wasaaradda cadaaladda ayaan kiiskiisa aan u wareejinay Trump waxaan sidoo kale uu soo bandhigay in muuqaal AI lagu sameeyay oo talaba sargaal oo FBI-da ka tirsan oo Obama xirayo oo isaguna qoslayo marka sida muuqata waxa uu doonayaa ninkan Trump in cadaadiska saaran oo ah sababta loo soo bandhigay laayahay kiisaskan Epstein Files-ka in uu ka sii jeediyo dadka uu dhinac kale u sii jeeday laakiin taageerayaashiisa ayaaba diidanba oo doonaya in arrintaasi la soo bandhigo marka cadaadis xooggan ayaa saaran waynu arki doonaa arrintan halka ay ku dhamaato laakiin waxa muuqata in Trump maadaama loo malaynayo in
liiskaasi Epstein filesku isagu ku jiro maadaama ninkan saaxiib loo lahaa dadka macaamiishana uu qayb ka ahaa oo isaga diyaaradiisa la leeyahay xitaa 7 jeer ayuu raacay in uusan doonayn in la soo bandhigo maxay tahay sababta loo leeyahay kun ka tirsan FBI-da ayaa 24 saac oo shiftiya la geliyay si 100,000 oo Epstein files ay meel kasta oo magaca Trump ay ku arkaan ay uga saaraan sababtaas sababta loo qarinayo halka ay ku dhamaato waan arki doonaa haddii aan leedmo aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo